ما يولا الحق كجابسن منه ما هالشيكود من حوينه هي أشخاص مقع لكن وحنا كجابسنين إن وناقة فرنو ما أنت الرابنا وحويها ويشرتاه إن يعني محكمة العصوبة أنا جدت كوجينا الكفر وحنا هل كان كتشيدين إياه إرجع كوسابسن صوب حستا أنساك كصوب حي حبسيجا صدح قضب أيانو قيبنا يا إرجعن مديوا مهدنق مدينة وحوي وحي كوسابسن تاي تشيلك سيدان كو قلي بلا ولا دماد arrimaha jeelka la xiriira qodobka u dambeeyana waxa uu ka hadlayaa kitaab aanu ilaahay soo dejin oo nala ku xukumay oo la yiraahdo xeerka ciqaabta guud haddii aan ku bilaabo mahadnaqa allah baan u mahadnaqayaa ilaaha mahadoo dhan ay isagu iska leeyahay ayaan u mahadnaqayaa إله خيرك قدري أيان مهنقيا إله قدرين إن شالك قالوها أيان مهنقيا إله وحا خيرك أيان مهنقيا إله ما أنت إصوص صاري أيان مهنقيا إله مسلم كي قدقي أيان مهنقيا إله سواء كبر إيوه إنه آخرية دون با إن حريستو إساقا مهدو دن إسكاله اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك فلك الحمد ولك الشكر لا شريك لك دad kaanu mahadnaqayo waxa kamida hooyaday oo inala joogta halkaas ay taagan tahay hooyo ilaahay khayr ku qaabal mariyo jazakallahu anni khayran ilaahay khayr hayga ka qaabal mariyo وقضى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلهي وحو يري سيدوك لا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا إلهي وحن كبر يهو يدين ونحريستو دنبي جيدا دافو رالك النقضة آخرة ويقرب تاقنيد انتي عن حدنا إلا يرانتي وحو يساسي يقرب تاقنيد إلا أنيقو هدا انتي هاتشرنا ويقرب تاقنيد وحوي إلهي خير هكوا بالمريو ورور بوكو هي حرقيقو لكن ما أنت حوي ويفرحسنت هاي وأنا إلى شوكته وحنو ما هنقيا سيدوك لا حاس كيجا ويدنا إن بدن صور براديكتي يدنا وحنا هاي ود ما هنسنت هاي إلهي خير هكوا بالمريو سيدا دي قرب اشتاكتي وحنو ما هنقيا لبدا قف كدب أهل كيجا لما أنتود وأنك لا سوء لهين حكتديدا لما أنتود أنك لا سوء لهين ومدول بابا كارين وكلها مناسبة كجيون منه هدان مقعدة ضدك احتريو لكن وحوي أهل كي حكتدا قرب كيجا مهنقة يقوله وأنو مهنقية مهنقة ودم بيه وحوي ومهنق بود قف والبا ماشو دونها تشوجو كالنتو دونه وحو دونه هاي قبطو مهنقة يقوله معروف كأي سميي وان مهنقيا إلهينا وحن نقبر إياه إنه أرنك أي قبتين إلهي خير نكواب المريو وحوية إنا نوجه هي إنا نوجين بقى وان مهنقيا كدب وحنوجو دقليا حرقيجي سيدو كبلامي intaan la soo xidhin walaalayaal waxa aan ka hadlayay bilihii ugu dambeeyay intaan la soo xidhin dhagaraha gaalada iyo dhibta ay nagu hayaan iyo inaynu ka digtoonaano dhagarur walba iyo xumaan walba si kooban haddaan u sheego waxa aan ka shaqaynayay wanaag farista iyo xumaan reebista ilaahayna faray ilaahayna wuxuu yidhi a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar أمانة أينو كلنا هاي وناقة أينو فرنو حمانة أينو رابنو تسواتي بنقواه إنا ينحوها يا سمينو أنا بليه قدام بيا رماها كهاللي أيا وحى جامعة برواقو وحفلة قبصتي كهاللي مسبيحي والشبكة دابارسية دوكسي دابارسبا أماني أو تاغيري
waxaanu sheegay in halkaasi lagu hayo wax islaamnimada iyo muslimiinta u dana ayuu sheegay waxay ahayd markaa uu hadlay taariikhdu 16 bisha 8aad 2021 aniguna maalin kadib ayaan hadlay anigoo arrinkaa ka hadlaya madaxweynuhu wuxuu sheegay inuu booqday oo isagu soo arkay waxaan idhi madaxweyne adigu muddo yaroo kooban ayaad joogtay marka meeshu waxay u baahan tahay guddi hubisa ayay u baahan tahay sidaasaan idhi waxay u baahan tahay meeshaasi cid yani muxuu ahaayey soo hubisa waxay muxuu ahaayey qabanayso waxaad ogaan kartid maaha waxaan kaloo aan sheegay markii aan ka jawaabay arrinkaa in dhaqaalaha ay bixinayaan ee uu ku ammaanay iyaga inay dani naga leeyihiin baan idhi sababtoo ah hooye gaalka ilaahay baa sheegay inaanu muslimka dan yani wanaag u wadin anigu waxaan idhi war lacagtan ay bixinayaan dan bay naga leeyihiin ha la iska hubiyo oo ubadkeen inay u dhigayaan ha la hubiyo bas meeshaa ha la hubiyo ha lala socdo baan idhi nuxurka weedhaydu saas ayuu ahaa waana duuban tahay maalin kadib markii ay taariikhdu tahay 19 bisha 8aad 2021 waa la soo xidhay markiiba waa la soo qabtay waxa weeye eedaa lay jeediyey inta burco layga soo kaxeeyey madheere la geeyey kadibna halkan aan ku dambeeyey eedo ayaa lay jeediyey eedahaasi waxay ahayd waxaad ceebaysay dugsiga abaarso waxaad warar been abuura ka faafisay dugsiga abaarso waayahay waxay yidhaahdeen caddaymaannu ku haynaa caddaymaha ay hayeen waxay keeneen dad ay yidhaahdeen waa waalidiinta dugsiga abaarso oo u taagan inay yihiin marag iga dhana isla markaana dhibanayaal waalidiinta waxaa lagu sheegay marag iyo dhibanayaal marag iga dhana iyo dhibanayaal say isu qabanaysaan anigu ma garanayo qofku dhibana gartay laakiin marag baan kugu noqonayaa dhibana kiisuu ka yahay waa lay keenay dadkaas waxa kaloo lay keenay caddayn waxaa lagu yidhi muuqaalkii aad yani ka jawaabaysay ayaa caddayn ku ah iyo baadhihii waxay ga qorayayba intaasaa caddayn ku ah aniguna caddayntaydii baan keenay waaya waxaan anigu caddayn aan u keenay aan caddayn ka dhigtay aayadaha qur-aanka kariimkaa ee ka hadlaya inaanay gaaladu wanaag la doonayn muslimiinta wax khayra oo wanaaga inaanay la doonayn baan caddayn u keenay sababta waxaa laygu eedaynayaa dee waxaad gaaladii baad ku tiri muxuu ahaye wanaagina lama rabaan anna waxaan idhi aayadahaasaa caddaynaya inaanay gaaladu wanaagina la rabin oo ay ujeed leeyihiin markay muxuu ahaye dugsiyo inoo furayaan iyo markaynu ubadkeenna innagoo aan kantaroolin aynu ku sii daynayno aayadahaasaan keenay waxaan kaloo keenay aayado ka hadlaya inaanay gaaladu joojinayn la dagaalanka muslimiinta ilaa ay ka saaraan diintooda haddii ay karaan waxaan keenay aayado sheegaya ama ka hadlaya inaanay gaaladu jeclayn muslimiinta waxaa ka mid ahaa aayadaha aan keenay maxkamadda horteeda ee aan caddaynta ka dhigtay ilaahay baa marag laga dhigtaaye iyo hadalkiise acuudu billaahi min ashaytaani arajiim maa yawaddu aladiina kafaruu min ahli alkitaabi wala almushrikiina an yunazala calaykum min khayrin min rabbikum iyo ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم intaas ayaan aayadahaas ayaan keenay iyo aayadda odhanaysa بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم waxaan kaloo keenay caddaymaha iyo caddaymo kale waxaan kaloo keenay nin la yidhaahdo anderson kuubar oo ku caana yani falka qoomuluudka inuu sameeyo inuu dugsiga soo booqday oo ardayda lagu sii dhex daayey oo ardayda lagu soo dhoweeyey munaasabad inta loo qabtay
ardaydii muxuu ahay la dhex dhigay oo uu khudbadeeyey oo uu taariikhdooda uga sheekeeyey oo aan idhi tusaalaha saasi may wanaagsanayn muuqaalladii baanu ku soo bandhignay projector ayaannu ku soo bandhignay muuqaallo caddaynaya ninkaasi inuu meeshaa galay oo ay ahayd inaanu gelin waxaannu soo bandhignay oo aannu caddaymaha maxkamadda keennay gabadh guddoomiye ka ah jaamacadda barwaaqo oo la yidhaha joy ciisa gabadhaasi waxaannu keennay twitter baannu keennay qoraal ay qortay kiniisaddii soo dirtay ay qortay oo ay leedahay waxaannu u ducaynaynaa joy ciisa oo somalilan u tagtay hawlo diimeed baannu keennay inkastoo kiniisaddii markii dambe ka saarto ay tidhi arrimo yacni naguma shuqul lahaa gabadhani oo si khaldan buu qoraalku nooga baxay ayaannu keennay labada qoraal baanu keennay waxaannu kaloo maxkamadda keennay gabadh la yidhaha Christina Bowden oo ka dhigta jaamacadda barwaaqo oo macallimada oo u ololaysa yacni LGBT weliba qaybta tiida oo ah isxawilidda in raggu rag iska dhigaan dumar iska dhigaan dumarku rag iska dhigaan sawirradeedii iyadoo muxuu ahaa calankii muxuu ahaayay dadka LGBTQ+ iyadoo ku xardhan baanu soo bandhignay maadaama annagana leedaynayo annaguna waxaan nidhi baltaan ayaga dee ayaannu nidhi maxkamaddaannu arrimahan idinkala hadlaya waxa weeye waa waxaannu maxkamadda muxuu ahaayay aanu geynay intaa iyo in kale ayaannu soo bandhignay maxkamaddii go'aan bay soo saartay laba go'aan bay soo saartay waxa weeye markii ay sukaaye eegtay labadeeda dhinac waxay tidhi waxa weeye waxba laguma laha ninkan wax dembiya laguma laha baraa ay soo saartay inaan beri ahay sidoo kale waxay amartay maxkamaddu in la sii daayo go'aan waxa weeye in la sii daayay maxkamaddu amartay waayahay lama fulin goobtii aan joogay lama fulin oo layma sii dayn in la sii daayay ay ahayd laakiin lama fulin maxaa dhacay anoo katiinadaysan baa dib laygu celiyey jeelkii asalku wuxuu ahaa marka shuruucdooda loo eego in qofka dee markuu muxuu maxkamaddu ay beri ka dhigto inuu baxo laakiin layma sii dayn adigu 3 bilood iyo dheeraad kadib maxkamad labaad oo rafcaanka baa lay bilaabay oo ambiil baa laga qaatay anigu ma qaadan markii ambiilka laga qaatay maxkamaddii waxay soo saartay go'aan bay soo saartay go'aankaasi wuxuu ahaa in 2 sano laygu xukumo iyo 3 milyan oo lacaga hadda wax cusub oo yacni ka duwan caddaymo cusubna qoladii hore may keenin aniguna wax cusub kuma daran intii hore umaan sheegay iyaguna wax cusub may keenin laakiin haddana 2 sano ayaa laygu xukumay waxaan biila kama qaadan anigu sababtoo ah yacni waxaa weeye rajo kama qabin cadaalad inaan helo waxaan biila kama qaadan marka waxaan go'aansaday inaan 2 sano dhammaysto 3 milyan ee lay saaran iska bixiyo oo aan muddada ku jira jeelka qodobka saddexaad ee walaalayaal marka inta waxaan kaga baxayaa xadhigayga horta saas waa sababtaan idinku warramaya waxa weeye aniga fursad layma siin inaan ku hadlo sababtoo 2 dhinac baana la ku yidhi ayaad is eedaynaysan ku soo eedeeyey qolada kalena warbaahintay la hadlaysay anoo xidhan oo qaarkood ku hanjabayeen inay dilayaan ama ay yidhaahdeen waa in la dilo oo waxay doonaan bay saarayeen anigana waa lay soo qabtay layma ogolaan warbaahin waan xidhnaynta marka maanta ayuu ilaahay ogolaaday inaan hadlo oo sheego yani muxuu ahay siday wax u dhaceen qodobka ugu dambeeya walaalayaal waxaa laygu xukumay kitaab aanu ilaahay soo dejin oo la yidhaahdo xeerka ciqaabta iyo xeerka habka ciqaabta maxkamadda waxaan ka dalbaday garsoorihii hore waxaan ka dalbaday iyo garsooraha dambeba waxaan ku yidhi kitaabka ilaahay igu xukun markaa waxaa laygu xukumay kitaab aanu ilaahay soo dejin oo la yidhaahdo xeerka ciqaabta keligayna maaha ee waa kitaab yaalla maxkamadda oo dadka lagu xukumo walaalayaal ilaahay wuxuu ina amray inaynu isla xukun tagno kitaabkiisa iyo sunnaha nebi moxamed sala allahu calayhi wasallam waxaanu inaga reebay inaynu isla xukun tagno waxaanu soo dejin wuxuu inaga reebay inaynu isla xukun tagno waxaanu soo dejin ilaahay wuxuu yidhi bacda acuudu billahi min ashayطaani الrajiim إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس
بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. آياداس waxay cadeynaysaa sababta uu quraanku u soo degay. Wuxuu quraanku u soo degay in aynu isku xukunno. Aniga xarigayga waxaaba iga daran. Yani kitaabkan lagu xukumay. waanu idinkaga darnaada. kitaab aanu Ilaahay soo dejin la isku xukumo. إلهي sidoo kale wuxuu yidhi بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. حكم كأن إلهي سودتين وحوي وحكم جاهلية أي آيات تلمامسة مركا يا إلهي وقع حكم وناكسن دول يقين ليمي يا إلهي نوقع حكم وناكسن يا إلهي نوقع حير وناكسن يا إلهي نوقع شرعي وناكسن ولا ليا معد بين نوقع شرعي وناكسن ومايا جوابته استفهام كاستي واستفهام استنكارية سيدوك لا إلهي وحيدي سورة النور إلهي وحكولي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. آيات أنه حكاها الله يسأسك حكم ككتابك إلهي وحليه منافقين تيسوا كورميا وحي أرانيان ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا الله يا الرسول كي سوان الروميني وانا نؤضيعنا أمر كيسا نقاضنا كدبنا وابي تيسنيانا ويكهر منيا ويكوكو عن سيريا وكوح كم إذا مسلمين أو منافقين كوكو عن سيريا مركي كدب انت هاي دهدان إلهي كوا ما هاي عن سيريا وحولي كواسي مؤمنين ما هكوا حديدي صفادود waa maxay sifadoodu waxa weeye marka kitaabka alle loogu yeero way diidaan wuxuu yiri wa idha du'u ila allahi wa rasuulihi liyahkuma baynahum idha fariiqun minhum mu'ridun hadii loogu yeero alle iyo rasuulkiisa si uu ugu xukumo si uu dhexdooda u xukumo waxa weeye way diidayaan way ka jeesanayaan marka walaalayaal dad islaama ayaynu nahay anigu saaka waxaan soo jeedinayaa وأنا سويت شيء يا مدحدة إيو مدح دقماتك إيو علماء إيو شعب كجودهان أرنك أنا سويت شيء يا عبد المالك بحبسك صوب حيس كي لاوة لكن عبد المالك وحيدون كباقية ورولا ليال حرك عقابته أي نسكت إنه محكمة ده إنك قاضنا وأي كبدل إنه حرك إلهي سود شيء وحنكو سوق بجبينية أنا قضية ضيدو وحلاقة دقة إنه نسهيسنو مال إسكول سهيسنو ورسكول اسمه هيسنو أشخاص قار اسمه هيسنو مركل لما حكم بدينا يقف مركل حكم بدينا يا لقى دقة إنه قضية سهيان أنا وحن قبا حرقة يحصلك كوهيا وحن كهالله يحق عن شيء عد والبو حق شيكته أو تاريخ ده صومرتي أما ولا الدلاء أما ولا حراء أما ولا فوقية ولا إريا marka anigu arrinkaygu maaha arrin aniga ii gaara waxaana idinku baaqayaa idinka dadkiinan halkan jooga iyo cid ay dhageysanaysa walaalayaal waxa weeye nabigu sallallahu alayhi wasallam wayna faray inaynu muxuu ahaay munkarka suulino yaani mid kastaba darajadiisa gacan ha noqoto af ha noqoto qalbi ha noqoto mid kastaba intuu karaankiisa ha suuliyo waxaan maqlay inuu islaamay asaasihi dugsiga abaarso iyo shabakada abaarso guud ahaanba sano tirsan uu islaamay warkaasi jeelku igu soo gaaray arrinka waan soo dhaweynaya aad iyo aad baan runtii ugu farxay inuu islaamo yoolka aynu leenahay muslimiin waxa weeye inuu qof islaamo لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أي النبي صلى الله عليه وسلم كيري صحابي كم إذا صحابديس إنه علي هابان ملانية marka inuu qof ilaahay kugu hanuuniyo qof qura waxay kaaga wanaagsan tahay geela cascas waxay inooga wanaagsan tahay diyaaradaha adduunka ayay inooga wanaagsan tahay iyo wax kasto qaaliya marka inuu muxuu hayay sababtu ku islaamay ma garanayo arrinkiisan laga hadlayo ayuu ku islaamay yaani ma si kale ku islaamay isaga inoo sheegi doona laakiin waxa weeye ninkaas uu islaamay anigu marka waan soo dhaweynaya gudahana waa la igu sheegay xabsiga halkanna waxa weeye waxaan ka sheegay inaan soo dhaweynayo midna waxa weeye waan ku darayaa islaamnimadiisa waxa weeye
إسلام نمديسو وين دكسيسة وين كم مقطع شبكة دابار سو وين لقاركا ما دام وقفك مسلم نقضي وحين لقى شيء وين وحكة بدله صوابته أقف مسلم بان نقضي ما شيء دون محوها سكلا وشقينيسا تيس قبل ميسو مركا إسقنا وحن وشيء وحوي ما دام واد إسلام لماذا هذا هلقا أركو شبكة دابارسو دكسي دابارسو هلقا أركو جامعة برواقة هلقا أركو دكسي كابة محوها يعني محوها بربارتا هلقا أركو أنت أسبوع شبكة دابارسه هلقا أركو وحوي ها ويشرته إن يعني محكمة العصوب أنا دت كوجين على كفري حبسي قد حير رمضان تي وادو جيدينه يعني وحي كدعي وادو جيدين وريال هل كان اللي تشوجنا وحوي والقحرة وين نوجي ما دين ماشى مركا وحوي أرنكي أيوم بامحوها هاي محانية يمحابيس كله نلقو إيدي محكمة بسعوتي لو بلادي يديرات محكمة دي وحوي قام بيسوى صارت حيرلانته كهر أرجو حكم إذا هادتك أي حيرلانته كوي ذي أدا أيان كم إذا أو أي قال النقطي وحوي واحد ترى عبد الملك يسقى يركله كوبشران بلا وحابنا هابانو وحوي وين مدح بدن بماشي نقص بوقتي تليال بدن بنقص بوقتي وحكم إذا رجي محابيس الدشيني حالة دمحها الدشيني يوم كم إذا صاحب بدنا ورياله يجون وأوجيه وركاس مركز صواب اللي يقصد ضريبة سياسي بنو فهمي لكن إلى هاي مركز دمو نقبض باديو وحوي محكمة لو بلادي مالها سينو سعتي ولا يقصر يعني يركله وحليلو عدينكم هاي سنة عبد الملك يركاس ركله أنا محكمة دي قوام بكسو صارتي يعني محوها حوي مركز حكم بكسو صارتي وحوي ولا سيداي أنتوا دي بدنا مذم بمحوها مقناها هاي هروسي بحي أيوم بمحوها هاي محكمة 6 سنة كحكمته مركز تاسي ويد عضي الركاس عضي ما يولى الحق كجابسن منه ما هالشيء من حوينه هي أشخاص مقع لكن وحنا كجابسنين إن وناقة فرنو حمان تربنو الحق لقب حماية إلا لنتو إلهي وحي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إلا أنت تكلم حق إلهي عابدات إلهي إنه حوي شيء يستحقه وح وليس مشران لكن قيسك وحي تعليهن حرية دي تعلين